Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Jamiila, waxaana rabaa inaan idinla wadaago qisadayda. Waxaan ku soo koray nolol aad iyo aad u rafaad badan, waxaana mar waliba isku dayi jiray inaan noqdo gabar adag si markaasina aan uga guuleysto nolosha. Haddaba waa tahay diyaar ma u tihiin in aan qisadayda idinla wadaago? Ina keena si aan idinla wadaago qisadayda. Qisadaydu waxay ka bilaabanaysaa markii aan dhashay 1 sano kadib. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu yimaado roob aad u xoog badan misana wata duufaamo aad u xoog badan. Dadkii magaalada degnaayeen oo idilna waxa ay bilaabeen in ay magaalada ka cararaan, sababtoo ah roobkani waxa uu magaalada u geystay dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaana ka mid ahaa in dad fara badan ay ku dhintaan. Dadkii ku dhintayna waxaa ka mid ahayd hooyadeyda oo aan aad u jeclaa. Waxaa dhacday in hooyadeyda meel waliba laga raadiyo, balse nasiib daro waa la waayay hooyadeyda. Markii dambena waxaa go'aan lagu gaaray hooyadeyda in loo tugto janaaso qaa'ib ah. Intaa kadib waxaa dhacday aabbahay in uu aad uga murugoodo dhimashada hooyadeyda. Si waliba ay ahaataba, ayeeyadeyda ayaa la talisay, waxayna kula talisay in uu gabar kala arooso si markaasina anaga ay inoo daryeesho. Balse aabahayga arrinkaasi waa uu diiday, waxauna dhahay ilmahayga sidii aan ku korin lahaa waa in aan ka fikiraa. Intaasi kadib aniga iyo 3 kale oo ila dhashay waxaana kafaalo qaaday ayeeyadeyda. Waxa ayna go'aan ku gaartay ayada gacanteeda in ay nagu koriso. Sidoo kalena aabbahay waxa uu mar waliba isku dayi jiray in uu farxad ina siiyo si markaasi aanan u dareemin inaanan hooyo lahayn. Balse si waliba ay ahaataba waa aan dareemi jirnay. Xitaa hooyadeyda wax sawiro ah kama aanan heenin si aan markaasina aan ugu soo xasuusanno oo aan isku ilaawsiino. Balse si waliba ay ahaataba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in ayeeyadeyda loo soo sheego dhimashada aabahayga. 10 sano ayaana ka soo wareegatay dhimashada hooyadeyda. Waxaa inoola sheegay aabbahay in uu ku dhintay shil baabuur. Intaa kadib waxaa inoo bilaabatay xaalad aad iyo aad u murugo badan, aniga iyo walaalahayba. Intaa kadib waxaa jirtay markii aan soo weynaanay aabbahay in uu guursaday gabar kale, maadaama ayeeyadeyda uu ka diiday markii aan yareen in uu guursado. Balse eedadaasi waxa ay nagu noqotay mid aad u dhib badan kadib markii uu aabbaheena dhintay. Intaasi kadib ayeeyadeydu waxa ay go'aan ku gaartay in walaalahayga Usaama iyo Muxamedba ay dibadda waxbarasho ugu dirto si markaasina ay jaamacadda ugu soo dhameeyaan, halka walaashayda Samiirana ay go'aansatay in ay waxbarashada joojiso kadibna ay isguursadaan wiil ay aad isku jeclaayeen, waxayna dhisteen nolol aad iyo aad u farxad badan. Meeshan waxaa ku soo hartay aniga oo kaliya. Ayeeyadeyduna waxaan u sheegay in aan waxbarashadayda sii wadan doono. Waxaa booqasho inoogu timid eedadeyda iyo 2 caruur ay dhashay. Labadanina waa 2 aad iyo aad u dhib badan. Waxa ay bilaabaan mar waliba guriga ay noo imaadaanba in aniga ay caayaan, sidoo kalena ay ila digaalaan. Mar waliba ay sidaas sameeyaanna waxaan uga dacwoon jiray eedadeyda. Balse mar waliba eedadeyda aan uga dacwoodo caruurteeda waxa ay igu jawaabi jirtay, ilmaha waa ay ka yar yihiin, wax aqliya ma lahan, adiga ayaa ka weyn ee u dulqaado. Intaasi kadib waan fikiray, waxaana go'aansaday in aan ula soo baxo wejigayga kale. Ilmahani waa ilmo dhibkii ka batay. Intaasi kadib eedadeydu waxay degan tahay xaafad kale oo ilmaheeda waa ay wadatay. Maalin kale ayay noo imaadeen oo ayadana way baxday, meel ayay aaday. Aniga maalintaasi ayaan ka faa'iideystay, inta i dhibeen ayaan qabtay, waa garaacay, kadibna waxaan u sheegay in aynan hooyadooda markay timaado aysan ii sheegin. Hadday ii sheegaanna aan mar kale garaaci doono. Ayagoo edeb leh oo hoos fiirinaya ayayna baxeen oo edeb ayay iga yeesheen, meel ayayna iga fariisteen. Maalinkaas wixii ka dambeeyay dhibkooda waan ka nastay, aniga ma mar walba u adkeysan kara dharbaxshadooda iyo feerkoodaba. Intaasi wixii ka dambeeyay waxaan hore u sii watay waxbarashadayda ilaa markii dambe ee aan gaaray heerka dugsiga sare ee waxbarashadayda. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu guriga yimaado wiil deriskeena ah
oo magaciisa la yiraahdo Baraa. Asiga iyo reerkiisaba ayadeeda ayay u imaadeen, waxa ayna soo doonteen aniga. Ayadeedana waa ay ku waafaqday hadalkooda amaba waa ay aqbashay codsigooda, waxaana la go'aamiyey xilliga gurkeena la dhigi lahaa. Balse Baraa waxa uu ahaa mid mar waliba kor iga ilaaliya, balse aniga waan arki jiray oo dheg jalaq uma aanan siin jirin. Run ahaantii waxa uu ahaa wiil aad u qurux badan, sidoo kalena weligiisa ma uusan ila hadlin. Intaa kadib waxaa la dhigay aniga iyo Baraa gurkeena, waxa uuna ahaa aroos aad iyo aad u qurux badan. Maalinkaasna waxay ahayd maalintii ugu farxadda badneed noloshayda. Baraa waxa uu ka dhashay reer hantiilayaal ah, waxa uuna si talantaali ah ama isdaba joog ah igu keen jiray hadiyado aad iyo aad u fara badan, waxaana ku nooleen nolol aad u farxad badan. Intaasi kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu ii imaado Baraa, waxa uuna ii sheegay inuu ii haayo lama filaan aad iyo aad u qurux badan. Markiiba waxaan ugu jawaabay, Baraa, mar waliba ayaad isiisaa lama filaan, haddaba waa maxay maanta lama filaankani aad u weyn aad ii hayso? Markiiba waxa uu igu jawaabay, haddaba waa igu waajib in aan mar waliba wax kaa farxiyo ku siiyo. Kadib waxa uu dhahay, waxa inoo keenay 2 fiiso oo aan ku aadeyno dalka Jarmalka. Markiiba aad baan u farxay, waxaana weydiiyey sideed ku keentay fiisahaasi, maxaa yeelay aad bay u adagtaa Jarmalka. Waxa uu igu jawaabay, waxaan ogahay inaad aad u jeceshahay inaad dalxiis u aado Jarmalka, balse anigoo la hadli raba ayaa waxaan dareemay xoogaa wareer ah, isla markiina waxaan ku dhacay dhulka. Markiiba Baraa aad buu u naxay, waxa uuna ii qaaday dhanka iyo isbitaalka. Muddo yar kadibna dhakhtarada ayuu la kulmay Baraa, waxa uuna weydiiyey waxa igu dhacay. Waxa ay ugu jawaabtay, wax kale ma jira, uurka ayaana sababaya wareerkaasi. Aad buu u farxay Baraa markii uu maqlay uur. Intaasi kadib waxa uu go'aansaday in uu surprise igaga dhigo uurkayga, waa uuna ii imaaday wax yar kadib. Markiiba waxa uu ii sheegay inaan uur leeyahay, balse waxaan ugu jawaabay arrinkaasi in aanan ku faraxsanayn, maxaa yeelay waxaan dhahay uma baahni in aan wax dhalo. Markiiba Baraa arrinkaas waxa uu ku noqday lama filaan, aad buuna u yaabay, waxa uuna i weydiiyey sababta aadan u rabin waa maxay inaan wax dhasho. Waxaan ugu jawaabay aniga uma baahni inaan caruur dhalo, kadibna caruurtaasi ay noqdaan beri ka maalin kuwa cidlo dareema oo markaasina agtooda ay ka waayaan wax garab taagan. Markiiba Baraa waxa uu ii sheegay arrinkaasi oo idil Allah subxaanahu wa ta'ala agtiisa in ay ka qoran yihiin. Waxa uuna sidoo kale ii raaciyay in uu ii keen doono gabar shaqaale ah inta aan ka dhalayo, sidaa awgeedna waa uu i qanciyey, balse waxay ahaataba hadalkiisa kuma aanan farxin Baraa. Intaasi kadib waxaa dhacday inaan isbitaalka ka soo baxo, waxa uuna imaaday Baraa xafiiskiisa, waxa uuna bilaabay in uu internetka ka raadiyo gabar shaqaale ah oo inoo shaqeysa. Waxa uuna sidoo kale bustigiisa raaciyay in loo baahan yahay si degdeg ah gabadha in lagu helo. Intaasi kadib waxaan u sheegay in aan loo baahneen gabar ka weyn 15 sano. Markiiba Baraa waxa uu bilaabay in uu aad u qoslo, waxa uuna markii dambe dhahay, Jamiila, maxaa kugu dhacay? Waa maxay masirkani? Waxba ha ka cabsanin, qalbigayga adiga oo kaliya ayaa degan, adiga oo kaliya ayaana degnaan doona. Kadib waxaan dhahay, haddaba anigu kula kaftamayo, dhabta ayaan ka hadlayaa, waa in ay noqoto gabadha aad noo keenaysid gabar xijaaban, edeb leh, akhlaaq leh, amarkaygana maqlaysa. Intaas ayaadna internetka dhigi doontaa. Markiiba Baraa inaan xanaaqa ayuu diidayay, waxa uuna dhahay, diyaar waaye, adiga ayaana dooran doono gabadha kuu shaqaynayso, waxba ka cabsanin. Kadib waxaa dhacday in gabdho fara badan ay imaadaan xafiiska Baraa ayna dalbadaan shaqadani, balse Baraa waa uu ka diiday dhammaantoodaba, sababtuna wax kale maynan ahayn, waxa uu ku diiday da'dii ay jireen gabdhahaasi. Laakiin waxaa si lama filaan ah hal mar ku timid islaan waayeel ah oo aad u ordaysa. Markiiba waxay bilowday in ay Baraa ka bariso in gurigeyga ay shaqaale ka noqoto. Aad buuna ula yaabay islaantani waayeesha ah, waxayna dhahday, waxaan awood u leeyahay inaan idin sameeyo wax waliba ee aad u baahataan. Markiiba Baraa aad buu u yaabay, waxa uuna weydiiyey sababaha ku kalifaya in ay shaqaale inoo noqoto. Kadibna waxa ay ugu jawaabtay, haddaba waxa igu kalifay wax kale maahan, adduunkani aniga cid ima joogto,
waxaana rabaa inaan gurigiina tago kadibna adinka wehel idinka dhigto sidoo kalena aan idin shaqeeyo. ugu dambeyn waa uu ogolaaday Baraa islaantii waayeesha ahayd in ay noo shaqeyso, waxa uuna keenay guriga. misena markii ay sidaa guriga u timid ayay hal mar inta igu soo oroday ayay laabta igelisay, waxaana aad uga xumaaday waxa ay samaysay. waxay dhahday aad baan ugu faraxsanahay maadaama aad i aqbashay. kadib inta hal mar iska kala turay ayaa waxaan ugu jawaabay, haddaba waxaad ogaataa inaanan jeclayn dadka adigoo kale ah oo waxyaabahani oo kala sameynaya. waxaana kuu sheegayaa inaad shaqadaada oo keliya aad qabsato, inta aad guriga ila joogtidna uma baahni wax war ah, sababtoo ah maba ka heli dadka warka badan. intaasi kadib waxaan u sheegay wax weliba ay qabanayso iyo sida ay gurigani u joogayso. waxa ayna samaysay in badan qaladaad fara badan, balse waxaa sababay waxaasi oo idil maadaama ay tahay qof waayeel ah. sidaa ay tahayna mar weliba waxaan isku dayi jiray in aan ku qayliyo markii ay qalad samayso, sababtana wax kale maahan, waxaan jeclaa inaynan mar dambe qaladkaasi oo kale aynan sameynin. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in xanuun aad u daran u iqabto. anigoo aad u yaaban ayay duqdii waayeesha ahayd waxay iisoo samaysay hilib, kadibna waa ay ii keentay. waxaanay dhahday hilibkani cun, waxaa laga yaabaa inaa caafimaadid. intaasi kadib waxaan dhahay, waxaan u malaynayaa wiilkani calooshayda ku jira inuusan sii noolaan doonin. horena waan ugu sheegay ninkayga inaanan rabin wax ubad ah, sababtoo ah waxaa ka cabsanayay ayaaba hadda dhacaya. intaasi kadib duqdii waayeesha ahayd ayaa ii jawaabtay, waxa aynay dhahday, gabadhayda waxaad ogaataa ubadka inuu yahay hadiyad alla subxaana watacaala dhankiisa ka timaada, waxaadna sidoo kale ogaataa inaad ku farxi doontid markii aad dhashay. bal ka waran haddii aan kaaga sheekeeyo qiso hadda kahor aniga igu dhacday, waxaa laga yaabaa xanuunka inaad ku ilowdid. markiiba waxaan ugu jawaabay, xilligani ma ahan xilli qiso laga sheekeeyo, balse waxay ahaataba waan isku dhibayaa ee ii sheeg qisadaada waa maxay. intaa kadib duqdii waayeesha ahayd waxay bilowday inay qisadeeda igaaga sheekayso. waxaanay dhahday magacaygu waa Badri. haddaba waxaan ugu jawaabay, hadda kahor waxaad igu sheegtay magacaaga inuu yahay Maryama. waxay dhahday haa waad saxan tahay, balse magacayga dhabta ah waa Badri. haddaba waxay ahaataba aan kuu bilaabo qisadayda. waxay dhahday waxaan lahaa reer dhammaystiran, ninkayga iyo 4 caruur aniga aan dhalay. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah magaaladii aan degneen inuu yimaado roob aad u xoog badan. maalintaas waxaa dhacday dad fara badan oo aniga aan ka mid ahaa in uuna qarqiyo roobkaasi xoogga badnaa. kadibna waxaa dhacday roobka awoodiisa in uu nagu garaaco derbiyada iyo geedaha magaalada ku yaalay, balse ugu dambeyntii waan soo naaxay. waxaana soo kacay anigoo jiifa guri gudihiisa. gurigaasina waxa uu ku yaalay magaaladii aan degnayn magaalo kale ee ku dhegneed. waxaana la kulmay reer aad u qurux badan, waxayna ii soo dhoweeyeen sida gabadhooda oo kale, balse nasiib daro wixii xasuus aan lahaa oo idil waan ilaabay. waxay ahaayeen reerkaasi reer aad ii soo dhoweeyey, muddo aad u dheer ayaana la noolaa, balse 10 sano ka hor ayay xasuustayda dib u soo laabatay. markii ay xasuustayda dib u soo laabatay ayaa waxaan soo xasuustay reerkayga meesha ay degnaayeen iyo sidoo kale waxay ahaayeen oo idil. waxaana bilaabay wiil reerkaasi ay dhaleen oo la yidhaahdo Ibraahim in aan idinkaga faalloodo. markiiba waxa uu bilaabay asigana in uu raaditaan idinku bilaabo, balse ugu dambeyntii waxa uu ii sheegay adinka oo idil in aad kala tagteen, sidoo kalena ninkaygana uu dhintay. maalinkaas waxaa ii bilaabatay murug aad u fara badan, waxaana ahaa mid aad u oysa, laakiin aad anigoo u niyad jabsan ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu ii imaado Ibraahim. waxa uuna ii sheegay mid ka mid ah caruurtayda in ay u baahan tahay gabar shaqaale ah, sidaa awgeedna in aan ka faa'iideysto fursadani, waana fursadda keliya ee aan adinka idinkugu soo dhowaan karo. markiiba aad baan u farxay, waxaana u mahadceliyey Ibraahim. kadibna waan soo baxay, sidaas ayaana adiga kuugu imaaday. waxaan ugu jawaabay, ma waxaad idhaahday gabadhayda ayaa tahay? arrinkaasi macquul maahan, inaan gabadhaada noqdana wax suuragal ah ma ahan, ee shaqadaada qabso, islaan yahay waayeesha ah. markiiba waxay ugu jawaabtay, i aamin waxaa tahay gabadhayda, balse hal mar oo keliya ii ogolow inaan hab ku siiyo. markii ay sida iigu soo dhowaatayba gadaal ayaan u kala tuuray oo dhulka ayay ku dhacday, anigoo markaasina dareemayay xanuun aad u daran
kaasi oo igaaga imaanayay dhanka caloosha iyo qalbigaba. Waxaana bilaabay in aan ku qeyliyo, waxaana dhahay adiga ma noqon kartid hooyadeyda, sababtoo ah muddadani aad ku faraha badan ayaa dib noogu soo laaban lahayd haddii aad hooyadeena tahay. Waxaana la kulannay rafaad aad u fara badan, ma aadan nagu fiirsadeen haddii aad hooyadeena tahay. Sidoo kalena waxaad ogaataa inaan ognahay inaad magaalkaaga iska aaday oo aadna nolosheena oo idilna iska ilowday. Waa ku baryaa mar dambe ha ay dhihin hooyadaada ayaan ahay, shaqadaadana qabso. Intaas waxay ugu jawaabtay, gabadhaydu waxaad ogaataa intani ee aan idinka maqnaa inaan habeen weliba ooyin ku jiifan jiray oo ooyinna aan ku soo kici jiray. Markiiba qaylideena waxaa maqlay Baraa, asigoo ordaya ayuuna imaaday. Waxa uuna dhahay maxaa idinku dhacay oo sidan ugu qaylinaysaan? Waxaan ugu jawaabay, Baraa, duqdani waxay leedahay waxaan ahay hooyadaada. Waa ku baryaa gurigeyga ugama baahni wax shaqaale ah, mana rabi wejigeeda inaan sii arko duqdani ee iga horwareeji. Intaasi kadib waan ka soo tegay anigoona dareemaya xanuun aad u daran. Waxaana iska soo aaday qolkeyga, balse duqdii waxay bilowday Baraa in ay uga sheekayso wax waliba sida ay u jiraan. Markii uu Baraa wax waliba ogaadayna waxa uu go'aan ku gaaray in uu u geeyo walaalahayga. Markii ugu horreysana waxa uu u geeyey Samiira. Markii ay sida u aragtay hooyadeydana aad bay u faraxday, sababtuna wax kale ma ahan, hooyadeyda si fiican ayay u taqaanaa Samiira maadaama ay ahayd waaygaasi gabar aad u weyn. Intaasi kadib waxaa sidoo kale loo geeyey walaalahayga oo ayagana dib uga soo laabteen jaamacadihii loo diray, balse aniga ma aanan aqbalin hooyadeyda in aan la heshiiyo, sababtuna wax kale ma ahan, anigu waxaan ahaa gabadha ugu yar ee guriga. Waxaana dareemay rafaad aad u fara badan, sidaa awgeed ayaana hooyadeyda balse waxay ahaataba waa hooyadeyda, waa midii dhashay, waa midii 9 bilood caloosh igu soo waday. Waana ku qasbanahay in aan cafiyo. Waxaana go'aansaday in aan dib ugu laabto hooyadeyda. Waxaana wada kulannay Baraa, waxa uuna ii sheegay hooyadeyda inayna jecleed, mar walibana ay naga fikri jirtay. Waxa anigana u sheegay waxay ahaataba inaan hooyadeyda anigana aan jeclahay oona rabo in aan dib ugu laabto. Baraana waxa uu igula taliyey sida ugu dhaqsiyaha badan inaan hooyadeyda dib ugu laabto oo aan soo raaligeliyo. Anigana fikir dheer kadib waxaan go'aansaday inaan hooyadeyda dib ugu laabto, sidoo kalena aan ka fikiro sida hooyadeyda cafis aan u weydiisan lahaa. Bal ka warama asxaabteyda, waxaan sameeyey waxay ahaayeen wax aad iyo aad u qaldan. Waxaana idin sheegayaa ugu dambeyn inay ii suura gashay hooyadeyda inay cafiso. Waxaadna ogaataan waalidiintiina inaad mar waliba baariyaal u noqotaan, aadna marna ku caasinin. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.